سواء كدب هذا أحواش إنك ورمو ساكي ندو حلي ولا أركي هذا هو كلا جرين كي قراب الشيء عيسي بيع بطو بطنا أجن أموي نبيرجع كل رياش عارف كل عبرة لو قلت ما هو واحد من دايرة سجال متر ملا إنه كله يهي بلعي سنة إلى يو أدو متر يبر ملا شد مودا إلى 2 متر بعد هاي إن الله وكله هي إن الله وكله هي marka dhaxda waa kasii weynaanaya marka niyo baa inta la eeg buuha laakiin waxa nooga muuqday in meesha suurta go'an tahay oo meel buu galay shabaab buu galay laga gooyay marka dhaawac waxa ka muuqday inay ka go'an tahay tuubaalkii tuurta baa go'an kaga yaalagana waaya gudoomiye marka ma markii ugu horeysay ba qaw sidan oo kale nabir u soo caariyo mise waa hore ay u dhacday arintan kale نيو كل ما هن هرب حد كورنو ويني لكن وقتي كلا فوق بأهايين أدي وقتي اللي قلت بس هذا لا بكون يوحنا ملايين يا طبعا كيمياء بنو ملايين يا وحكسوا عاشي أدي نوع فاكير مو مستلابان إنه هذا اللي قلت لنا بيكا لكن كانوا على سلق غير إنه هي نبلي كاس لكن مو مستلابان أدو ينبوها لكتيسه حلي كسي هرين واجرتي هذا كان مغادي لنا عيدا أي مغادي بدي هذي ويا إسكسوا عاشي dhinaca jaankana asagana mid baa jiray 90 iyo 9 iyo meelahaas ka soo caashay baa jiray marka kulay waa xeebaha meelaha wixii ka dhaca ay biyahooda u soo dhacaan wixii ka dhaca dhinaca kan adigoo Cumaan iyo waxa ka soo rogan waxa moodaa inay soo raacaan biyo dhaca kan jaanka marka xillidaasaan ku aragnay kulay kuwa hadda waxa jiray hadda aasaartooda si baaba'ayso lafahooda ay noqdeen gambaro lagu fariisto gudoomiye marka waxaan la soconnaa maxay tahay marka sababta keenaysa in nibirga inta leeg uu soo caariyo waxaan ognahay in badda xeebaha Puntland ay joogaan doonyo shariif ah dad badan waxay aaminsan yihiin in badda sun lagu daadiyo idinku maxaad u maleynaysaan wada maadaama aan dhaawac ku aragnay waxaan isleenahay shabaaga inuu ka galay maraakiib waaweyn ay iska soo gooyeen لكن كان هذا ما هين كل وانا دوحنا على شيء سند الله بك مقضي جربك بالك أصلنا واقعنا مركب واحد إسلامنا هاي حد يذكر أولته أول مرة مركب من يكون دجان أما لا جش نعدك تانو كوجيان مويه أما عد وش قادر يسوي شيء مويه أما لين ما ينوك أو حكم مغني إن واحد عند عبك تاليه هدو قبلها ورا هين أما إيش يسمون أنتي أما شو بجاره لكن هذا سنت هاي kalluumadii kale ayaa soo raaci lahaa kaliya kuma dhinteen waaya marka maxaa laga yeelay maadaama nimirigu uu yahay wax badda ku nool dhamaan uu xalaal yahay maxay tahay qorshaha ka yeelaysa ka leedihiin niyo wuxuu yeeshay ufuuf marka haddii uu lahaa maalmahaasna badda ku soo jiray wuu jilcay xoogaho wuxuuna yeeshay urur buu yeeshay haddii de wuxuu isugu yahay waa laga faa'iideysan lahaa wuxuu ahaan lahaa suwad badan baa laga shiilaa hilib badatay buu ahaan lahaa laakiin se maadaama uu sidaa noqday marka kolay wuxuu noqon doonaa adigu hadda de awood kale looga siyaaran ma laha marka badda cusbaa buu joogaa haddana dhinaca naga jira awoodiisa wax badan oo yeelaa ma jirto hadda badda baa un furfuraysa maadaama cusba tahay ilaahayna ugu talagalin ku nooleeyey hadda baktigiisana kolay iyadun baa baabiinaysa marka dadka deegaanka ma uga digteen oo si aysan u isticmaalin maadaama sifooyinkaas aad ku sheegtay ha taas waxay gelin bay ka qaateen daawashii aragti mooye hataa korkiisa hadda cid taabanaysa oo gelaysayna ma jirin marka nin walba uu dul tagayay waxa weyn baa la eeganayay marka cid kale hadda la falgalaysay ma jirin marka qodobka amnigana waa uu la joogtay oo marka waa inta iftiinka ay daawashaas loo tagayay maadaama wax weyn oo la arki jiray ahayn oo daabadaas weynaatay ilaahay بدك خلقي إن لا فيشه مخلوقات في سنة كاملة. وايهاي مركا وزارة كلماسية يا أنت مكور جلسة أنا ما حررت. إنه ما نحرزين لكن إن شاء الله كل رباط إن شاء الله شديد ونسيرنا والله أمني قوم بانو لو بدين مركا إن شاء الله قلي كلا وسيرنا إلى واحد وريو لكاسيو وهي ديجان كسوخرة أمني قايبتهم بلا حريرية ويتكلم بهم بلا كاسيو وزارة مشغلة. waayahay si kooban ugu dambeyntii bal xaaladda deegaanka dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo dhanka wax soo saarka iyo amniga ka war dhammaan alxamdulilah ilaahay waa iskale sanadkan sida la socotaan baxeedaha goobaha ugu roobo badan bay ka mid tahay roobo badanna waa ka da-een ilaa haddana waa xusan yihiin
marka waxbarashadana waa dee weli tayramkiiba hadda dhow muraajacooyinkiiba bilowday saa la socotaana hadda xarun caafimaad oo weyn ayaa lagu kordhiyay health center ah deegaanka hadda laga furay aan soo furnay khamiista dhaweyd marka alxamdulilah dhammaan xaaladaha guud waa fiican yihiin dadkana wixii tacbeerooda ku jirna waa ka shaqaystaan wixii badda ku jirna waa ka shaqaystaan wixii kalena waa